السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacaygu waa Cabdiqaadir Dubad. Kusoo dhawow tutorialka maanta. Casharka maanta wuxuu ku saabsan yahay how to calculate the difference between two dates in Excel. Qaabka loo xisaabiyo laba dates ama taariikh kala duwan iyadoo la isticmaalayo Microsoft Excel. Marka maanta waxaan baran doonaa exactly how to work with dates in Excel. Marka waxaan isticmaali doonaa dates function. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka kusoo dhawow subscribe na saar si aad ula socotid tutorialska badan ee aan soo gelino. Without wasting much time, let's go straight into the tutorial hadda. sida ku muuqata waxaan actually haystaa oo aan sameeyey sample aan isticmaali doono. Sampleku waxa uu yahay today's date, your birthday, and the days until your birthday, start date of a course and end date. Marka waa laba example ayaan ka bixin doonaa, laakiin intaanan qaybtaas u gelin waxaan rabaa inaan ka hormariyo shortcutska aad isticmaali kartid ama formulaska la isticmaali karo marka laga hadlayo dateska. Tusaale ahaan equal today marka aad tirahdid open and close parentheses inta la dhahdid wuxuu ku siinayaa taariikhda la joogo maanta exactly. taariikhda saxda ee maanta ayuu ku siinayaa. Functionkana waxa uu yahay equal today open and close parentheses. Okay, waxaan rabaa inaan ayadana iraahdo equal now inaan ayadana isticmaalo exactly. equal now wuxuu ku siinayaa dateka maanta la joogo iyo exactly timeka waqtiga la marayo hadda waa 9:40 saad aragtaan. marka exactly labadaas formula aad bay muhiim yihiin. Now waa aragtaan waa equal, now open and close parentheses. dhanka kale today calaamadda marka aad aragtaan oo equalka ah any Excel formula oo la isticmaalayo ama qaacido kasta ee Excel ku saabsan waxaa ka horeeya mar waliba calaamadda equal. waa wax automatically ah date kastana maaragtay loo isticmaalo. marka taa waa example iyo Excel functionska marka laga hadlayo datesku ku jiro. aan u gudubna marka examplada aan rabno inaan ku isticmaalno maanta dateska. waxaan rabnaa inaan kala jarno ama isku darno laba date si aan u helno farqiga u dhexeeyo ama taariikh gooni ah oo aan doonayno inaan helno. ugu horreyn waxaan ugu horreysiinayaa middan today's date. waxaan isticmaali karaa formulaga hadda aan maaragtay ka hadlayo oo ah equal today open and close parentheses and then enter. taariikhda maanta dhabtu isiinayaa. mar doonaya marka inaan isticmaalo tan haddii kale waa inaan format gareeya. marka inaan format gareeyo ama aan xiro on close gareeyo si aysan isu bedelin maadaama formula uu ku jiro waxaan simple dhihi karaa control C oo copy ah kadibna best aan tagaya as values aan u best garanaya. waa aragtaan meesha formula uu ka baxay taariikh caadi iska noqoto. hadda qaybtan your birthday waa maalinta dhalashadaada ama dhalashadaada taariikhda waqtiga ay ku beegan tahay ugu dhow nearestiga ah. tusaale ahaan baan u isticmaalayaa. tusaale ahaan anigu dhalashadeed waxay ku beegan tahay haddaan soo qaato 20-ka bisha 3aad 2021 the nearest ugu dhow taas bay noqon kartaa. marka datekan waa the current date maanta la joogo. kanna waa birthdayga waqtiga ugu dhow waqtiga ku aadan tahay 20-ka March 2021. waxaan rabaa marka inaan ogaado the number of days until your next birthday ama your birthday meeqa maalina ka xigto si aad u taragarayso. tusaale ahaan like how many days ayaa maaragta ku jiro. waa tusaale ahaan waxaan isticmaalaynaa dabcan waan ogahay in runtii aysan that much important ahayn laakiin waxaan u isticmaalayaa as an example oo keliya. marka waxaan samayn doonaa number of days saan u helno inta maalmood ee naga xigo. saan hore u sheegay any Excel formula waxaa ka horeeya calaamadda equal ayaa ka horeyso. marka waxaan leenahay equal datekeyga oo ah 20 March 2021 oo next year laga jaray maanta dateska exactly waxaa kuu soo baxaya number of days oo ah 211 days. 211 days ayaa ka dhiman marka ayaa maaragtay ka dhiman ilaa iyo waqtigaas exactly. adigu dateska wax kale ku ahaan kartaa maybe you know a certain like dhacdooyin kala duwan oo ku dhacay baa tusaalahan waxaad dhihi kartaa maanta taariikhda waxaa la joogaa inta dhacdada soo socota ama meetingka xiga wuxuu maaragta dhacayaa 20-ka bisha 3aad 2021. marka meeqa beri baa ka dhiman meetingka tusaale ahaan. marka 20 days si automatically ayaadna maaragtay ula soconaysaa. halkaasaad ka taragarayn kartaa mar waliba u baahan tahay.
tusaalaha labada isticmaalaya waxa uu yahay waxaan rabaa for example inaan course online aan bilaabo ama caadi ah marka waxaan rabaa start date-ka course-ka inaan halkan ku qoro qaybtan hoosena aan calculate gareeyo marka end date-ka ilaa goormuu dhamaan karaa marka tusaale ahaan aan idhaahno course-kayga wuxuu bilaabanaya maanta oo ah 21 bisha 8aad 2020 tusaale ahaan ayuu bilaabanaya marka course-kan waxaan rabaa taariikhda exactly uu dhamaanayo gormay ku beegnaan doontaa which date for example si aan calendarkayga maybe aan u maagareeyo ama aan u ogaado taariikh heble in course-kan uu ii dhamaanayo sidaasna aan ku taragareeyo aan ku ogaado maybe taariikhda uu dhamaanayo marka always any formula aan qoraysid calaamadda equal ka hormarinayna waxaan leenahay equal date uu bilaabanayo course-ka lagu daray meeqa beri uu soconaya tusaale ahaan course-ka let's say wuxuu soconayaa 60 beri 90 beri 120 beri like any month laba bilood data 60 beri 3 bilood 90 beri 4 bilood maybe 120 marka tusaalahan waxaan ka soo qaadanayaa 60 beri oo ah 2 months laba bilood inuu soconayo marka 60 ayaan ku darayaa kadibna calaamadda equal aan dhahayaa which means course-kaas wuxuu ii dhamaanayaa 20ka bisha 10aad 2020 which means 2 months ayuu soconayaa marka automatically labada tusaale aan isticmaalnay kan hore waxaan kala jaraynay laba taariikh si aan u helno inta beri ee u dhaxaysa labada taariikh gudahooda qaybtan kale tusaalaha kalena waxaan isticmaalaynay taariikh uu noo bilaabanayo course ama program ama howl gooni ah at the same time end date-ka gormay ku aadan tahay taariikhda maaragtay howshaas ay dhamaanayso marka course-kayga wuxuu dhamaanayaa 60 beri kadib oo ku beegan 20ka bisha 10aad 2020 marka basically qaybtaana waxaan u isticmaalnay inaan kala jarno oo aan number of days aan u helno qaybtaana waxaan isticmaalnay additional oo ah inaan helno marka taariikhda xigta ee programkaas ama howshaas ay dhamaanayso marka precisely date functionska waa very important inaad kala jartid kala jarika awooda u leedahay inaad kala jartid laba date iyo inaad awood u leedahay inaad ogaatid maaragtay taariikhda ay ku beegnaan karto howshaas aad doonaysid ama aad danaynaysid inaad ogaatid maaragtay exactly the number of days oo ay qaadanaysa markaa og tahay marka tutorialka kooban intaas ayaan kusoo koobaynaa maanta waxaan isleenahay runtii waa very important mar walbana waxaan jeclaa inaan idinla wadaago wixii technically caawin kara maaragtay ummadda Soomaaliyeed fadlan haddii aad ka heshay tutorialkan waxaan ka codsanaya inaad like saartid videogan isla markaana aad la wadaagtid asxaabtaada. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.